waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daahsoon waana 20kii bishii March 2019 barnaamijkeena qaybteennana waxaynu ku eegaynaa kulankii military ee ugu xasaasisanaa ee ka dhaca gobolka Bariga Dhexe muddo sanada ku soo dhawaada barnaamijka. caasimada dalka Suuriya ee Dimashq waxaa shalayto salaasadii kulan ku yeeshay taliyayaasha ciidamada ee saddexda wadan ee Iiraan, Ciraaq iyo Suuriya oo ah wadamada la magac baxay isbahaysiga wax iska caabinta. Generaalka ciidamada Iiraan Maxamed Cali Al-Jacfari oo ku hadlay afka saddexda taliye ayaa waxa uu faahfaahiyay ujeedooyinka kulankooda oo ku macneeyay mid khuseeyay si xoojinta xiriirka military iyo isku duwidda qorshihii saddexda wadan ka dhaxeeyay ee la dagaalanka argagixisada sida uu hadalkiisa u dhigay generaalku, isagoo intaa ku daray in sidoo kale kulankoodu ku saabsanaa xaqiijinta amniga iyo deganaanshaha gobolka. Generaalka reer Iiraan waxa uu si cad warbaahinta ugu bandhigay in si ay ula dagaalamaan argagixisada ay dalkiisu soo diyaariyeen ilaa 100,000 oo qof oo hubaysan oo ay keeneen Suuriya iyo Ciraaq sanadihii u dambeeyay si ay uga hortagaan jamhadaha Nusra iyo Daesh iyo waliba mucaaradka kale ee Suuriya, isagoo sidoo kalena generaalku sheegay in Israel ay guud ahaanteed hoos harsanayso saanada xulafada Iiraan, cadawga Yahuudna ay go'doonsan yihiin oo aanay awoodanba u lahayn inay sii wadaan dhul ballaarsigoodii. waana kulanka la aaminsan yahay inuu dhabarjab ku yahay Maraykanka iyo xulafadiisii gobolka ee hamigoodu ahaa inay dhisaan isbahaysi carbeed oo ka soo horjeeda amaba waajaha jamhuuriyadda Iiraan. waana kulanka laga yaabo inuu ka dhashay oo lagu soo gooyey booqashadii madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ku tegay Ciraaq toddobaadkii ina dhaafay iyo tii ka sii horeysay madaxweyne Bashaar ku tegay magaalada Tehraan. waana kulanka ay Iiraan saddex ku tahay laba dal oo ka mid ah kuwa wadamada Carabta ugu waaweyn si kastoo ay colaado riiq dheeraaday u leexiyeen xuduudoodii dawladeed. waana kulanka ay Iiraan mar kale ku muujisay inay iyadu weli mindida daabkeeda hayso marka laga hadlayo siyaasadda amni ee gobolkaasi, gaar ahaan dalalka Carbeed ee Shiicadu awoodda hayso. waana kulanka lagaga wada hadlay sidii ay Ciraaq iyo Suuriya uga wada shaqayn lahaayeen furitaanka xuduudahooda iyo adkeynta ammaankiisa si ay markaa ugu fududaato Iiraan inay isticmaalaan dhabaha ama marinka isku xidha Shiicada gobolka ee ka soo bilaama magaalada Tehraan kuna dhamaada Beirut ee reer Lubnaan. waana dariiqa uu horena u isticmaalayay haatan weli u sii baahan yahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo soo mariya gaadiidka dagaalka kuna soo daabula ciidamada iyo maleeshiyaadka Shiicada ee hubaysan ee ay keenayaan dalka Suuriya. waana wadada qaybta ka ah qorshaha istiraatiijiga ee dhanka isu socodka bariga ee saddexda wadan oo uu ka mid yahay dhismaha jid tareenka isku xiri doona saddexda wadan ee ay Iiraan haatan doonayso inay dhismihiisa bilowdo. waana jid tareenka ka imanaya Iiraan soona maraya dekedda Ciraaq ee Basra dabeetana u soo foorarsanaya dhanka hoose ilaa uu masaafo dheer u soo gooyo jihada galbeed soona dhex maro magaalooyinka Baghdad iyo Dimashq oo ugu dambeyntina soo gaadho magaalada Laadiqiya ee dalka Suuriya oo kulaalaysa xeebaha badda Mediterranean-ka. waana jid tareenka masaafada dheerkiisu gaari doonto qiyaastii 1600 kilomitir. kulanka saddexda generaal waxa kale oo u muuqda mid lagaga wada hadlay isdhaafsiga macluumaadka dhanka sirdoonka iyo wardoonka militariga. waana kulanka ay suuragalka tahay in lagaga ballamay heshiisyo waaweyn oo khuseeya dhanka ammaanka sida in aan saddexda wadan midna dhulkiisa ka kale laga soo weerari karin. waana heshiisyada haddii ay dhacaan oo laga ansixiyo baarlamaanada wadamadaasi ay ku adkaan doonto ciidamada shisheeye ee xulafada ee Maraykanku hogaamiyo in ay ka howlgalaan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. generaalka reer Iiraan ee kulanka Dimashq ka qayb galay ayaa sharaxaad uu ka bixinayay xaddiga badan ee maleeshiyaadka hubaysan ee ay keeneen Suuriya iyo Ciraaq. waxa ay fariin toos u tahay madaxweynaha Ruushka oo dhawaan sheegay in la gaaray xilligii ay ciidamada shisheeye ka bixi lahaayeen Suuriya sida ciidamada kala duwan
ee iiraan ka jooga dalkaasi suuriya.